بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دوادا وربحين كسابسان شابيل داد هورتود كعوني هويني كشقيني سيبير حيوان. فضلا هدي عاد نقول عصوب تهي سبسكرايب سار لايك سار سينا شير قري ولو داق أصحابتينا ما هتسند. شابيل نوع عصير بيانكا ayaa haweeney ku cunay beer xayawaan oo ku taala caasimada Zurich ee dalka Switzerland xilli ay halkaasi ku sugnaayeen dad badan oo soo daawasho tagay goobta iyo waliba shaqaalaha beerta. Shaqaalaha ayaa haweeneydaasi u gurmaday balse uma suurtagelin inay nolosheeda badbaadiyaan sida uu sheegay maamulka beertaasi. Baaritaan ku aadan sida falkaasi u dhacay iyo waxa dhaliyay in haweeneyda iyo shabeelku ay isku meel joogaan ayaa hadda socda. shaqaalaha beerta ayaa sheegay in haweeneydaasi la badbaadin karay haddii gurmadkii ay u baahnayd uu soo gaari lahaa xilli wanaagsan. Shabeelka ayaa la sheegay in 2015 uu ku dhashay beer ku taala dalka Denmark sanad ka horna loo soo wareejiyay xerada Zurich. Dadkii goobjooga u ahaa falkaasi naxdinta badan ayaa loo fidiyay gargaar niyad dejin ah. weerarka ayaa dhacay Sabtidii waxaana maamulka beerta uu sheegay in maanta oo Axad ah ay goobtaasi xirnaan doonto. in xayawaanka ku sugan xeryaha lagu carbiyo ay halkaasi dadka ku cunaan ayaa ah arrin inta badan aan dhicin balse ma aha markii ugu horeysay ee xayawaan uu qof ku weeraro gudaha xerada Zurich. bishii December 2019 iyo xaas ku jira xeradaasi ayaa gacanta ka qaninay qof ka mid ah shaqaalaha nadaafadda ee halka markii laga fujin waayo waxa ay noqotay in la toogto xaaskii.